سليمان بن عبد الملك أحد ملك من ملوك دولة الأموية بوها حرمكو صوغلي حرمك مركا وحاكو اعتكاف سنة سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عالم جليلة وتقي إلهي على قلله boqorkii baa u yimiday su'aalu weydiiyay uu uga jawaabay nasiixu ka dalbay uu nasteexay markaas uu boqorkii baa sheekhi buu ku yiri ii sheega waxaad u baahan tahay xaajadaada maanta ii sheego waan ku dabooliyay markaas uu halkeen joogaa buu leeyahay aqalka ilaahay baad joogtaa kacbaday ku jiraan xajar baytullaahi alxaram bay dhex fadhiyaan labadooduba markaas uu maano aqalka ilaahay dhex fadhiya ayaan ilaahay qeyrkii weydiistaa buu ku yidhi subxaan allah waa boqor ma ahan madaxweyne waa malika dunya adduunka oo dhan buu xukumayay dowladda islaamka oo dhan ballanna ma qaadaan bale jeegna ma qorin dadkaasi boqorradu kiishash dhan oo dahaba lala daba soconayay qofka ay daaq siinayaan way cantoobayeen way siinayeen wuxuu ugu jawaabuu ku yidhi maano aqalka ilaahay dhex jooga ayaan ilaahay qeyrkii weydiistaa buu ku yidhi boqorkii u yaabay dibadda u baxay boqorkii baa markuu bannaanka istaagay xaraskii ciidankii la socday buu ku yidhi sheekhan waa nin ilaahay ku xidhan xaq buu inagu leeyahay waan u adeegaynaa waan u khidmaynaynaa waxbaan u qabanaynaa ilaahay baan ugu dhowaanaynaa halkaa bannaanka yaa ku sugaya halka ay fadhiisiyay buu yidhi caawa markuu sii hooyanayahay soo mare halkii buu ku sugay markaa sheekhi iyo ardaydiisii oo la socota u yimiday baa leeyahay boqorkii yaa meesha ku taagan markaas uu soo dhawaaday ma wax su'aal oo kala ku hadhay markaas uu su'aasha ay hadhay waxa weeyaan aqalki ilaahay waa adiga ka soo dhex baxee baahidaada ii sheeg waxaan ku daboolay markaas uu ma adduunyo mise aakhiro markaas uu aakhiro aanu ma hayay buu laakiin adduun maanta waan hayaa buu adduunyada miyaa buu dhaha ilaahay abuuray baan inaan weydiistaa ka xishoodaa buu iska dawaaba adiga adduunyada ilaahay abuurtay ayaan inaan weydiisto ka xishoodaa buu yidhi inakana ducadeena maanta maxaa u badan 90% markaan ducaysanayno haddaan ducaysanaba weeyaan haddaan ducaysanaba waxaad u moodaa ducadeenu inay adduunyo u badan tahay maanta dad badan baan imika la kulanno dee khayr bay nagu tuhmayaanoo dad awliyay noo haystaan laakiin walba isagaas og wuxuu yahay haddana dadkii noo duceeyeen na lahaaya khayrka nagu tuhmayay mid cadaab alqabr ilaahay inuu iga badbaadiyo suu'ul khaatimana ilaahay inuu iga ilaaliyo khaatimada ii hagaajiyo igu duceey yiri ma maqal qof walba wuxuu leeyahay ilmihii baa sida niga ma guursana gabadh wanaagsan ma raba ubad wali ma hayo reerkii baa bannaanka dibadda iga jira inay ii soo noqdaan ma raba aniga shaqo ma hayo qaarna waa bugtaan iyo xanuun bay sheeganayaan waa run in la isku duceeyo laakiin waxaan ka wadaa qofka waxa qalbigiisa ku weyn ayaa carabkiisuna ka soo baxda markuu ducaysanayo saalimna wuxuu ku yidhi boqorkii adduunyada miyaa adduunyada ilaahay abuurtay inaan weydiistaa ka xishoodaa buu yidhi inaan weydiisto way weydiisanayeen adduunyada ilaahay laakiin way ka xishoonayeen xishood laanna arsaaqada ilaahay baa noo qoray nabiga nin baa u yimid oo yidhi ilaahay markaan baryaya maxaan ku ducaystaa ii sheeg xadiiskaasi waa saxiix albukhaari buu ku yaallaa nebigu wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhaahdaa allaahuma kfir lii warxamnii wahdinii warsuqnii ilaahow dembigayga dhaaf oo ii naxariiso oo i hanuuni oo i hadee ila i arsaaqna adduunyada nebigu uu dambaysiiyey calayhi salaatu wasalaam laana nolosheenna adduunyada maciishada waxa ciriiriga gelinaya ma taqaanaa waa macaasida saasuu nebigu ducada u barayay saxaabadiisa dadkii ilaahay ku xidhnaana hee waxay lahaayeen adduunyada ilaahay abuuray inaan weydiisanaa ka xishoonaaba iska daawo adiga لأن قلبك إخلاص كاقل إخلاص لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم
mutaqallabakum wamathwaakum waa ka ilaahay lahaa faclam baro maxaad baranaysaa laa ilaaha ila allah baro ilaahay horta barashada ilaahay baa horaysa kolkaad ilaahay aad barataa baryadiisaa kuu dhib yaraan kolkaad ilaahay barataa daacaddiisaa kuu dhib yaraan kolkaad ilaahay baratid cabsidiisaa kuu dhib yaraan kolkaad ilaahay baratid waxa uu kaa reebay inaad ka reebtoonata ayaa kuu fududaan nin saalixiinta ka mid a ayuu ninku yidhi yaa sheekh ilaahay waan baryaynaa laakiin baryadii ducadii lama aqbalaya maxay ku dhacday buu ku yidhi wuxuu hi liannakum tadcuuna man laa tacrifuunahu ka aad baryaysaan weli maad barane horta ilaahay soo barta buu ku yidhi baro ilaahay faclam cilmigaa horeeya cilmigee la baranayaa cilma alikhlaaskaa la baranayaa cilma aliimaankaa la baranayaa cilma alyaqiin baa la baranayaa faclam waxaad barataa ood ogaataa annahu laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa koonkan ma jiro hadduu jirana waa allahu rabb اlcaalamiin keligii weeyaan wastakfir lidanbika walilmu'miniina wاlmu'minaat adiguna ilaahay dembi dhaaf weydiisa baa nebiga lagu yidhi adigii anigana laynagu leeyahay mu'miniintana ilaahay dembi dhaaf u weydii wallaahu yaclamu mutaqallabakum wamahwaakum waagu markuu beriyo inta meeloodeed ka soo noqonayso meeshaad marayso meeshaad fadhiisanayso meeshaad ku dambaynayso meeshaad u socoto waxaad doonayso iyo meeshaad barida saarayseed fadhiisan doonto ka ogee la socdo waa ilaahay caza wajalla qur'aankaa ku baraya towxiidka qalbigu hadday xaqiiqatu tawxiid xaqiiqatu liimaan qalbiga hadduu galo jidhkan inuu ilaahay adeecaa markaa way dhib yaraan qalbiga haddii ay macrifada ilaahay aynan gaarin halkii la doonayey daacaddu way kugu adkaan macaasida inaad kar joogsataana way kugu adkaan gaadhiga framekaa qabta soo maha hadduu bilaa frame noqda ka warrama laa yazni الzani xiina yazni wahuwa mu'min qofku ma zinaysta buu nebigu yihi xilliga uu zinaysan isagoo iimaan qaba qofku wax ma xada buu nebigu yihi xilliga uu xadaayo isagoo iimaan qaba waa laga siibaa iimaanka qofka buri ibn cabaas ilaahay qofkuu doonana iimaanka uu ku celiya qalbigiisa kuu doonana ilaahay waa ka qaadaa iimaanka ilah waa naga qaadin macaasida waxa kaa qabanaya waa iimaan haddii iimaanku limidkii la doonaya hadduunan gaadhsiisanayn salaadda inaad ka tagtaa way ku fududaan macaasi inaad ku dhacdaana markaa way kuu dhib yaraan limaada laana fraamkaaga halkii la doonaya ma gaadhin weliu kaa qaban laha macsida ibraahim aladham allah u naxariistee ayaa nin dhallinyaraa u yimid oo ku yidhi yaa sheekh ibraahim nin dhallinyaraan ahay oo shahawaadkaygii baa igu kacsan buu yidhi macsiyana ma dayn karaya maxaan sameeyaa bal ii sheeg sheekhow markaa buu sheekhu yaabay inaa lilaahi war maxaa tidhi cisyaan ma dayn karayo anuu macsiyo ku jiro baan isarkaya sheekhu wuxuu ku yidhi ma garanaya waxaad samaysay orod iga teg kolkuu kii yaraa sii jeestay buu u yeedhay wuxuu yidhi ma waxaad leedahay macsiyo ma dayn karaya haa ee qiil ii raadiya haa de maxaan sameeyaa wuxuu yidhi bal waa hagaaga caasi ilaahayo markaad ilaahay aad caasinaysid dhulkan aad ku joogto isagaa samaystee dhulka uga kaco dhulkan dhul aan ahayn doondoono oo samayso ilaahay ku soo caasi buu ka yidhi ma jira ma dhici karta buu yidhi dhulku waa dhulkan dhulkale ma jiro dhulkana ilaahay baa iska leh siday ku dhacday buu yidhi markaa ilaahay dhulkan lahaa adoo dhulkiisii kor saaran inaad dhulka dusheeda ilaahay ku caasido siday kuu dhacday buu yidhi haddaba mid labaad baan kuugu dari arsaaqadda aad cunaysa iyo biyahaad cabbayso ilaahay baa iskale soo ma ahayn caasi ilaahay oo caasiyo amarkiisa diid oo amar diidda ilaahay ku samee laakiin baadkiisa iyo biyihiisa u daa buu yidhi ha ka taabanine ma jiraa haddayn karaysid biyaha kama maarmi karaysid baad kama maarmi karaysid ilaahay dulqaad badana waa hagaag buu yidhi haddana tu saddexaad baan kuugu dari meel uusan ilaahay ku arkayn raadso oo meeshaa intood gashid halkaa ilaahay ku soo caasi ma jirtaa tu saddexaad tu afraadna waan kuugu dari
maalinta malakulmoodku ku soo doonay ruuxda lagaa qabanayo iska diida waxaa tidhahdaa cisyaan baan intaa ku soo gaadhe waan toobad keenaya 50 sano dambe ha laygu daro ma jirtaa ma jirto yarkii yaraa uu yaabay meelu ka baxu waayey laana culamadu de hami ummadeed baa ku jira iyakoo usluubu dacwo bay yaqaaneen yuuti alxikmata man yashaa waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira xikmaddaana nebi maxamed bay ka barteen calayhi salaatu wasalaam laana nebigeenna xakiim aha calayhi salaatu wasalaam masaajidkii isagoo nebigu jooga nin dhallinyaraa nebiga u yimid oo gacanta taagay su-aasha weydiinayaa la dhegta loo taagay yarkii su-aal cajiib uu soo saaro wuxuu yidhi yaa rasuul allah anu zine ma dayn kariya zinada ha lay ogolaada buu yidhi saxaabadu way yaabeen saasay u eegeen maxaa tidhi markaa buu nebigu yidhi daaya soo dhowow walaal ma kula dhasheen gabdho walaala ahaa way la dhasheen habaryar ma leedahay haa edo ma leedahay haa caynkaa ma leedahay haa raalli ma ka tahay kuwa aad qaraabada tihiin ee ehelkaaga in waxaa loola tago oo nin meesha jooga waxaa ku sameeyo may dhimashaan ka aqaanaa buu yidhi wuxuu yidhi de zine ii fasax baad igu tidhi haddaan zinada kuu fasaxaba ka soo qaad gabadha aad zinada ula tegaysid ragga halkaa fadhiyo unbay ama walaashii tahay oo walaal ugu toosan tahay ama habaryar ugu toosan tahay ama eddo ugu toosan tahay ama inantiisii ay taho uu dhalo aabbo ugu toosan yahay sida adiguba kuwaaga aad waxaa raalli aad ugala ahayn ayakuna kuwooda raalli kalama abuu ku yidhi markaa buu yaa rasuul allah ilaahay dambi dhaafii weydii markaa buu nebigu soo dhowow ka yidhi laabta halkaa buu nebigu gacanta u saaray wuxuu yidhi ilaahu farjigiisana fuxshigaa ilaahu ka dhowr dembigiisana ilaahu ka dhaaf qalbigiisana xumaanta ilaahu ka saar buu yidhi bal fiirso طبيب الأمة معلن لمده أدوك ما سومرين من سومر دونه وقاذا محمد عليه الصلاة والسلام معلن عجيب أبوها يركي يرى وحيد مالين تبا يقدم بيسي حمان أنكو هميوها مالين تنبي يقول لابته وقعنته إيسارة يقدم بيسي بيولي masaajidka dhexdiisu nin acraabiya cawradiisi intuu la soo baxay ku kaadiyey saxaabadu way ku yaaceen ka jooga buu nebigu yidhi halkuu ku kaadsana biyo ka badan qaadoo ku shuba isagiina iigu yeedha buu yidhi kaadida ha ku kala goynina buu nebigu ku yidhi dacuuhu faraha ka qaada buu yidhi halkuu ku kaadsana biyo ka badan ku shuba isagiina uu yeedhay لماذا بنيت المساجد مساجد وحي الله دسي ونبي يقول شيء نكي حولي والله معلن لمده هرو ما أركن دب دمنا وما أركن يقول يمد بسن يمع عاين وحنا يقول مدفن إله أني محمد نون حريص عدك لنا هنولنا حريصا بيولي بركاب النبي يقول رحمة إلهي واسعة هاي أي اللي بدنا كسو كوبته كدر أصحاب تيدنا النبي يقول ادعي دعاء كدر إياكنا marka usluubta dadka loo islaaxinayo ee ummadda toobadda iyo ilaahay xaggiisa loogu xidhaayo waxay ka qaateen darsiga Muhammad calayhi salaatu wasalaam rasuulkeennii bay ka qaateen calayhi salaatu wasalaam Umar al-Faaruq radiyallahu anhu ayaa waxaa jiraya nin rasaa'isha risaaladaha uga keenaya maaragtaan ardu Shaam Umar ninkii buu waayay booskiisii nin kala yimiday markaasuu cumar ku yidhi war ninkii hebel ahaa ee risaaladaha ii keeni jireen xidhiidhin jiray me yaa amiir almuuminiin ninkii waxaa leen u simbiri raxdaan lagu yidhi diintii uu ka noqday shaarib alkhamri buu noqday dhulkuu ku dhacay markaasuu cumar kacay uu fadhiistay markay raggii noqonayeen buu la dardaarmo wuxuu ku yidhi horta ninkaa waad u tegaysaan oo salaam baad iga gaadhsiinaysaan warqadna waa niigu dhiibi risaalada u geeya buu yidhi intaanad u teginna ducab ilaahay barya buu qalbigiisa ilaahay inuu soo jeediyo
في سورة غافر أيو كشاقي ابن كثير رحمه الله أوائل كيغا سورة آياتها وقوه الرأيت شرحي أيو كشاقي آيات دنو مركا عمر قري حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير